بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت بدن بشوينت الصومالية وحلا سعتي. إن ديتا عدي نقول دعي وأنا لا أعرف شيء وأنا هو يدي من الدليل وأنا لو ذا جبرها بالشدة يقيبها وربعين تكالدون. وعلى السجي تذكي مدحضة وها تذكي نلاقي عيدا كا مركزي ماشي عن تكنيكها. waxay ahayd in jawaab loo wada dhag taagayo oo bulshadu si weyn u dhowrayso oo la wada filayo oo la isleeyahay maxaan ku dhaadayay waxa ka soo bixi doona wax ama garwaaqsi ama garow waxa inanta iyo hooyadeed ku dhacay ah nasiib daro xalay waxa aan midiyaha ka arkay oo soo taagay afayeenka ciidanka Faysal Xiis iyo saddex kale nin oo runtii astaama saraakiideed ka muuqdaan laakiin degabigoodu deedaniya oo aniga soo kay wadaag taagay si ay ugu jawaabi lahaayeen waxaan halkan soo fadhiistay maanta inaan sidii wax u dhaceen way cadayde aan bal eedaas aan salka iyo raadka oo toona lahayn abuurka inta faraha leeg maxaa la yiraahdaa la igula kacay anagoo waliba dilan anagoo jir dilan anagoo waxaan qabnay cidina soo eegin in maxaan ku dhahday halkan maanta inta xalay la soo istaaga la yiraahdo baabuur bixoo ka soo gashay meesha Faysal Xiis wuxuu yiri saacadu waxa ay ahayd 6:49 minute 7:11 daqiiqo la xilliga aynantu meesha soo gashay si ay u waafajiyaan xilliga gaarku ugu feejigan yahay ee maqaariibta baabuurta de soo gasha ama laga shaki karo ama la maaragtay la ogaande ana sida harka cad u adeegina maana service bixinay laamaha ka doonay dawladdu wuxuu yiri nasiib wanaag xabad kuma ridin wuxuu yiri intay soo degtay askariga dhawanaanisa wuxuu yiri garsoorkan la tigsanayna nootaayo sharciye saxiixeen wuxuu yiri cid baa arrinkeeda dabada ka soo riixaysay waxaan leeyahay anoo arrimaha soo qodob dul istaagaya ta koobaad ah saacada aanu meesha nimid ee uu ninkan hadlay ee Faysal Xiis ku sheegay inay ahayd 7:11 daqiiqo la ama 6:49 minute inay ahayd abaara 4 iyo dheeraad oo aanay xataa 5 gaarsiisnayn marka salaada casar laga baxo sida ay ku cadahay maraga kaliya ee anigu aanan filaynba u bartiisa ku daabacay ee Xamse Cumar ku joog wiilka la yiraahdo number 2 wuxuu yiri waxay xoog ku soo gashay gaarka kuma soo galina baarkin kan galay oo leeyga dhaqaajin waliba halkan dhiga oo halkan digi lahaa intuu ii tilmaamay waliba guri hore u gal oo guri hore garaysay inay yaro kibir badan baa tahay wuxuu yiri askari bay dhabanaanis qof kasta oo aqli leh wuxuu garanayaa in aan inta qof shicibihi xarun dawladeed yimaado oo uu soo service doonto aanu cid waliba ku dhex dhabanaanin karin de wax aqliga gala in lagu hadlayd waxay ahayd in been la sheego been run oo eeg la sheego waxay ahayd in la yiraahdo si fiican waan idinka adagnahay inta meel la soo istaaga la yiraahdo arjuuqday ya ku yiri juuqde laakiin may hayn in la yiraahdo ya halkaasay xoog ku galeen ya halkaasay askari ku dhabanaanisay ya halkaasuu ciidanka booliisku wax ku baahnay waxaad loola yaabaa runtii jawaab bulshada iyo annaga iyaga dhibanayaasha ahayn iyo heladeedii toona ay ka filayeen ciidankana ma noomana cuntanto waxaanay muhiimadu tahay adar mil dushiisa lama dhayo Faysal adigu waad hadashay haddii mas'uuliyad ku saaran tahay oo mas'uuliyad qaran ku saaran tahay gurigaaga iyo kaayagu intay isu jiraan wada ogtahay si fiican baad noo garanaysaa